يعني الواحد قدبي ما لأن أنتوا كويا رجوشي سكودو هدوك كنا والله دينا عن كفر دينا عنا كفر دينا عنا كفر استال روا هذا يوم هالسيهين ولا عليهن غير عافي وأنا عن كبده غير عافي أنا هاي بدوكتي أنا دل الدرس بعد شيء يعني ماشي اللفت الدبر قال محلها نيجي جيسي هاي مركي هبل كواجي هبل كواجي أصلا صدم بالواجي ووجي سبجرت مركا أنا وأنا عافية وأنا إلهي وحن كبري خير عافية جوش دكتي إلهي ونبركه دقالك مش حس يو واحتركه وما جالس عن قوله إلهي هبركه مرادك أي جوش أو دكتين إلهي مقبول هكذا ورسمك جديد وردن الله بركه هاي ورسمك جديد هذا بركة بلا أنك معنترينه صالح جلهم متري ورياه أولياء تردي جبرائيل إلهي بركه إلهي اللي بتقليها النصيه إلهي اللي بتقليها النصيه موافقة إلهي نقدره دين كاس وحن عنكو السيني دقة مختار دين غير أفقاه الله خير متكاس يا نور حية كل الدين كالآخرين أردن وخير بديه لكن كاسا أسي خير بدن معايا كاسا أنا كل مياه كاسا أنا أركي جرني كان هذا الأخيين وحواك مش يجينه أرنت الدعاء الدينكي أنت عشان كجبحي قلب كي قال هذا كهالله وحنا هاي حقنا بتجيلي إنكم حسارنا مالين أن كجوجنا سدح بري وحن جوجي حفيز كرجنولك أنا يوم مضانها أن كسر دورنا ماشان لو أن كلو أضياله وأنا هذا ما قعد شيء إنه وانا لجوجي سيدان aan idin imaaday waa la soo diray iskama imaanin diinka kaliya waxa la yiri u tag cidda intaan la maamulay nin walba ha soo maamulo awliyaad raaf gaab kalima fadhiyo inta raaf gaab kalina aniga umihi bis jaman waxaan bis jaman ka ahay inta ninka dhiisiga uu xukumo ama maxamed daay uu MB-ga ka yahay intaasaan bis jaman ka ahay intaasaan ka hadlay دولتنا تلابة يسوّدا تلابة دا أيده أنا كم كان دونتو معايا لي وادوكتهين كم كان دوران إذا كدولة ده وحكوفي عنها إنه حرض كجرو كل كلا درو دتكو در شعبي جينا بدأ عبو در بحكو بلابي الله درني في ملح جسي أهان وحيالها صوم الرواد كسيسان أنا ما قعدنا وجير لقو قولي ما قرنا يسان أوي حسن أو أنا ما قعيها أنا لقو قرا هيو وجير صوت وقبلها إنه وجير صوت كو قريهين يا الله رحمة لك عبد الله الشيخ ظاهر ها MB يدي سيان أنت كأني معلم بالغو دواقي لوكيشن أنا أقول له هشيني بيسيه يا لغو دواقي لوكيشن كي إنه مد ملح بنانا هذا ريمي حقسي انت كدن بيسي وحان اوغاهي نبض باي كشقين هيين لمن كتشيفافك هذا الجوغانه aad baan ugu mahadceliyay laakiin hadda waxaan idan ka baryay dadka waalidka ahow adigoo lagu khasbaynin adigoo lagu lahayn askar baa lagu soo bixin adoon lagu caga jugleynaynin inaan isasifayno wiilasheena duurka aan ka soo bixino waxaad ogsoontihiin dhulkan inay bari shufta qaadatay qoyskanaga u horseednay inaan nin ree afgaaba intaan dillo oo xabad ku dhufalno asaga iyo qorigiisi oo meyd oo gaari riti saaran aan dawladda u keenay arrintaas oo ma jirto dadaalkii oo kale aan rabnaa hadda hadalkayga xanaf iyo ree hebelow haddaad saa yeeli weydaan saasaa liidan yeeli kuma jirto laakiin waxaa ku jirtaa ninkii yidhi warbeenaalu ahaa baa la yidhi markaasaa waxaa la dhihi jiray war naga daaya afmaroor muxuu sheegay maalinkii dambe yaa wuxuu arkay wax weyn wuu soo qayliyey markaasaa la yidhi waa lagu yaqaanaa war anoo rafan weligeed ma aragteen buu yidhi hadda waa rafashadii waxaan idinka baryey idinkoo sidan u fadhidaan
oon caano naga daadanin oy dawlad noo soo kicin wiilasheenna ha loo yeero ma diidahayaan waan huba aniga kolkii qoriga la soo bixini nidaam baa loo soo bixin yaan la gafin ma jiro qori intii la soo bixiyo si loo wado dhiisi loo geyn ama dhiyool loo geyn waxaa loo keeni jiifka waxaa loo geyn biis jamanka iyo jiifkoo wada jiraan waxaan u geynaynaa dhiyooga eeriyadaas waxaa loo geyn dhiisiga ugu dambaysta xafiiska booliiska ee si ay dhiigaa lagu wareejin waraaq baa lagu siin inaad nabadgelyo tahay yaa waraaq lagu siin barigay hay-adaha noo joogeen dadkii fiican oo saa wax u soo bixiyo xoogaa dhaqaale baan sii jirnay xafiiskanaga laakiin hadda wixii asagaa ma jiro anigaba duurkaygaan ka xabkaystaa xafiisaan wax ka hel malaha laakiin haddii aad nabadgelyo qabto nolosha keliya ee adduunka ugu fiican baad ku noolaan waxaan idinka baryi walaalayaalow arrintaa ha loo qaato serious oo waxaan baryi wiilasha ayade qur-aankanayto aan akhrisanno khayrkiisa ilaahay hana siiyee baggoodana burcad allaha noo mariyee wiilashaa ha soo galbadaan hanal doono nin walba wiilkiisa gacanta soo qabsado taas halkaasaan kaga hadlay ta labaad qur-aankan faraha badan aan akhrisannay allaha barto maxaa yeele wiilkan oo dhan iyo wiilka horeba inta ayada eh qur-aan reebka fuudida baa ku akhrisaday magaceeda muxuu ahaa qoryaale reedalan meeshanaytoo la yidhaha magaceeda qaribo 5 bay ku geliyeen 5 bay ku geliyeen sida awadeed haddaan waxba akhrisanay oon waxba soo gaarin saalax tirow iyo maxamed afgaab iyo kuwa yaryar yaa weli waxba akhrisanin laakiin annaga waxaan rabnaa diin ree afgaab u wada dhan yahay diin ree afgaab u wada dhan yahay maantadan inta ku joogta qalqaalaheeda ha la galo qalqaalaheeda ha la galo diyaar baan u nahay intaan qoys u sii akhrisanay inta naloo akhriya allaha noo aqbaliya inta kalene afgaab diin u dhan yahay oo muwaafaqe oo kaba tuure aan akhrisanno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasaa aniga ka baxaya